waxaan runtii hooyo iyo aabba Soomaaliyeed oo isqaba ee waddankan raba inay ku korsadaan aan kula taliyaa tan koowaad inay labadooda hal layn ay ka istaagaan hadday noqoto ilmaha korintooda waayo haddii aabbihiina uu dhaho ba hooyadina ay tiraa wareerka cunuga meesha sooba ka bilaabaa inay hooyadana wax lagu ogaado aabbahana wax lagu ogaado oo cunugii markaas oo ku koro farxad oo aabbadii iyo hooyada ay raalli waxay iskala yihiin oo arkaayo markaas tii dibadda ka timaado labadooda way ka caawin karaan aragtida kale ee dibadda uga keeni karo waa yaraahe inuu cunuga ku wareero hadduu ogyahay hooyo aabbo heshiis ku ah korinta ilmaha inay guriga joogaan xagga waxaa ku koriyeysa hal dhaqan iridda hadduu ka baxo halka guriga wax yiila ayuu irid bannaankana kala kulmaa laakiin cunuga intuu ku koraa guriga waxa yaallo wax ka duwan ayuu bannaankii kale kusoo arkaa cunugii marka waxaa ka dhumaayo waxa uu yahay ma kasaayaba qofka uu yahay hadduusan helin waalid indhagarad ah ee bannaankana og waxa looga sheegayo gudahana sida dhaqankiisa oo u fahamsiin lahay og cunugii markaas wuxuu ka badbaadaa khatarta bannaanka uga imaan karto markuu og yahay inuu marka hore oo waalidka ka helo wax la yidhaahdo annaga sa u kala dhaqan duwannahay waxa annaga diintayna iyo dhaqankeenna ku quruxda badan markaas qoladaas wuu la qabsan karaa laakiin markuu gurigiina ogeyn waxaa ka jiro bannaanka tii aheedoo qaadaha hadhowna wuxuu kuula imaha isagoo mid kala wato marka bannaanka dibadda loo celiyo waddanka loo celiyo kow aabbay hooyo qof aan hayna hayhay labo wuxuu isu arkaa cunug ka duwan ilmihii laga waday cunugii marka dhibaataa ku dhacayso maskaxiyan wuxuu leeyahay adiga waxba ma ihid camal xaggana ma ku noolaan karin waalidka loo geeyay isagana isma fahmayaan warkee waalid iyagana dhaqankeedii hore way heestaad u geysay marka intaad la ordi lahayd aniga hooyooyinka waxaan kula taliyaa iyo aabbayaasha inay iyaga ay cunugooda bartaan sida cunug ilmaha loola hadlo ayna ku bilaabaan inta ay yar yihiin geedka waxaa la yidhi intuu yar yahaa la toosin karaa haddii marka uu 15 yahay haddaa bilowda inaad la hadasho weligaana intuu yaraa aadan xiriir badan lahayn dabcan cunuga isfahmaysid marka intayna kula ordin inay iyaga waalidka isfiirshaan seen cunugayga u fahmi karaa maadaama dhaqankayga hore aan ahayn aan imid saa cunugaygii aniga isula hadli karnaa saa cunugayga tarbiyada fiican oo diintayda xalaasha iyo dhaqankayga ku fiican markii annaga nafteena dhaqankayna meelo badanoo xunaa ka jira kan xun iska tuur kan fiicanna qabso waayo haddii aad tahay hooyo wax koraysa ama aabbo wax koraayo adaa ilmihii u ah waxa la yidhaahdo kudayasho uu ku dayahay forbelde holandaaskana adaa forbeld u ah role model adaa u ah waa inaa marka adiga dhaqanka fiicnaa tusto markuu dhaqanka fiicnaa kaa arko waxaan ku kala duwanahayna cunuga uu caddahay cunugaas inta badan ma dhumo laakiin markaa cunugii tiraahdo iska baxo meesha hartay aadna meesha idii cunugaaga xiriir badan lahayn cunugii waa wareera markuu wareerana aadna ka dhigata xal waa celiha waa uga sii dare waxaa waaye deb holcaayo oo gaas lagu shubay naqaysa marka waxaan kula taliyaa waalidiinta ilmaha dhaqanka meesha la geeyey ma laha ee sida aad ula dhaqanto ayaa sembir oo ilmihii barahaya